dhalinyaradii hargeysa mar walba waa xafad annagoo dhalinyaradii bariga hargeysa waxaan doonaynaa halkan inaan laba kelmadood dadka iyaga iyo dawladda baa nidhaahno iyo asxaabta qaranka waxa horta muhiim oo inaynu isla garanno waa laba kelmadood labada kelmadood haddaynu isla fahanno wax waliba si wanaagsan buu dalkuna horumaraya dhalinyaraduna horumaraysa annagu ma jecelin dhalinyaradeeda soo kacaysa nacfiga iyo xumaanta iyo xasadka la isku xisbiyeynayo la isku xasadayo nin waliba wuxuu xaq noogu leeyahay ama madaxweynaha ilaahay sharaftiisa cilka mariyay ha noqoto Muuse Biixi Cabdi ama ha noqoto ina ciro ama Faysalka ilaahay ha noqoto mid waliba wuxuu xaq noogu leeyahay inuu weydiisto codkayga kaliya kii fikirkaygu nala noqdana waan siinayna hadii ilaahay yiraahdo insha Allah laakiin qofna xaq noogu ma leh inuu weydiisto dhiigayga sida uu sameeyo ina ciro iyo xisbiga wadan annagu wadani ma nacbin mana diidanin kumana naan oran kuma codeynayno laakiin waxaanu leenahay kuma mudaharaadayno waayo kuwii hore mudaharaadada wax ku noqdayba wax alaaliyo wax habeen ma soo dulistaay war sidaad kursiga u kala qaadanaysaan sidaad u kala badinaysaan idinka idin jirta ee annaga amniga iyaga iyo deganaanshaha iyagu adeerta khalkhalka nooga daayay iyo xaafadaha iyaga ciyaalkeega waxaan raacinayaa carruurtaadu Finland bay joogtaa carruurtaydu halkanay joogtaa ma doonayno iyagoo jaamka iyo badharka ismarsanaya Finland carruurtaadu annaguna kuwa iyagu dhaawacmaan ma doonayno adeerana daa oo naga daataa codkuna haddaad la weydiisatana ama waanu ku siin ama waanu ku diidi waa labadaa mid magacaygu yahay Farxaan Cabdi Garow kana mid ah dhalinyarada reer hargeysa shacabkayga reer hargeysa hal shay baan leeyahay waxaan leeyahay asxaabta qaranku waa isku mid ka doonto waa taageeri kartaa ka doonto wada odayn kartaa laakiin mid qura oo ku weydiisan kara dhididkaaga iyo dhiigaaga toona ma jiro xisbiga wadani mid baan leeyahay maalintii doorashada laga helay wuxuu yiri waxaan nahayaa danta shacabkayga dhiigga shacabkana daabin maayo maantana waxaan leeyahay maadaama sidaa ugu dhawaaqday inaad taa mudaharad salmiya oo aanay maanta ayna qaadi karahayn ayaan qabanqaabinaya runtii waxaan leeyahay gudoomiye waa laga qurux badan yahay golaha dhexe 200 qof kor bay u dhaafaa maadaama waa doonaysa inaad mudaharaado 200 waa niman gawaadhi heli karaya madaxtooyada ha hor dhigaan gawaadhidooda ha kana mudaharaadaan masaakiin yaryar oo shacab guriga xisbiga wadani wuxuu ku dhex yaalaa xaafad aan wado weyn lahayn meel baabuur weyn ka soo galaan aan jirin waxa ku xeeran maatiya carruur markaad mudaharad salmiya la soo doonato dadka way waxyeeloobayaan way jajabayaan way dhaawacmayaan waxa ku jira haddii doonaan dad buka oo aan qeylada qaadi karahayn Abdurrahman Ciro kama fikirin halku ku yaalo xafiiska golaha dhexe ee xisbiga wadani wuxuu ku dhex yaala xaafadda New Hargeysa xaafad aad u jaama waliba aan wado aad u fara badan lahayn waxaan ku leeyahay mudane Ciro waxa aad la doonataa madaxtooyada iyo wasaaradaha mudaharaadka waliba adiga oo golaha dhexe la xisbiga kula leeyihiin oo wadada wax kula gashaday mudaharaadaya ee maaha shacabka inaad la soo doonato shacabka reer hargeysa waxaan leeyahay kuwii hore wax ku noqday ayaan xilliga cidna soo dul istaagin naafoobay mudaharaad cidna wax kuma hesho ayaan leeyahay marka waxaan leeyahay dhalinyarada reer hargeysa aqligiina iyo fikirkiina iyo maskaxdiina la idinkeebsanin wax mudaharaad leedaha sameynina ana mudaharaadina baaqi maxaa manacado ku dhawaaqay ahaa bari 8 la iskugu yimaado xarunta xisbiga wadani anigoo baaqa aan ku sii tigaanay waxaan ka hadlayaa waxa weeye hal isku yimaado macnaheedu waxay noqonaysaa mudaharaad loo soo baxo hal isku yimaado haddii la isku imanayo
waxaa la isku balansan lahaa amba xubnaha wadani iyo mas-uuliyiinta ee shaqalka bel ugu balami lahaa meel ay munaasib ku tahay xarunta wadani sidii qodobadii hore dee ka hadleen dhalinyartuna annagoo ku hadlana afka dhalinyarta bariga Hargeysa waxaan leenahay hortaasi munaasib kuma ahayn in aad isugu yeedho shaqgunaha Hargeysa waayo waxaa dhinaceeda meeshii ah xaafadihiiba ah waarkii dadka jabanba ah aw aadan baa dhinaceeda ah waa luuq yar waa xaafad jaama waa maati waa iskuulla u dhow meel wal markaa waxa aan qodobka ku dari lahaa kale qodobkii uu ka hadlay taliyaha ciidanka booliska maxamed aadan askari dabagala ee ahaa mudaharaadku wadda loo soo maraa ayuu leeyahay haddii aad mudaharaad doonayso cirooy wadda loo soo maray leedahay wadadeeda u soo mar annagu dhibaato intii hore noogu filan dhibaato dambana taaguma hayno markaa waxaan leenahay guddoomiye dhaliilihii hore annagu xusbina af xusbina kuma hadlano wadanina ma nihin kulmiyana ma nihin laakiin waxaan ku hadlanaa afka dhalinyarta bariga Hargeysa ya mudaharaad taaguma hayno nin walba tiisa cuslaysay nabad baa naasir ugu leh markaa nabad baan ku baaqanaa annagu isku soo baxaas annaga danno maaha haddaan nahay dhalinyarta bariga Hargeysa siibaan xaafadda miyo Hargeysa ku yaallo xisbiga wadani xarunta guud waxaan leenahay cirooy taaguma hayno mudaharaadka isku soo baxa rinta hore imaada barta ee dhibaato ee ka dhacda annagu mas-uul kama nihin mas-uuliyaddaana qaadi mayno xisbiga qaadi doona iyo cirkaa qaadi doona xisbiga wadani ee xarunta wadani iyo mas-uuliyiinta wadani ayaa qaadi doona wixii dhibaatay berito hore bartaa ka dhacda annagu kuma raacsanin wadani xaafadeedana dhibaato lama jeclin dadkayga iyo dhalinyarteeda iyo deegaanka toona dhibaato lama jeclin dhammaan dhalinyarada ku nool degmada Gacmadaah waxaan leeyahay nabadda ha la ilaaliyo nabaddu waxay muhiim u tahay waa innaga cidday wax soo gaadhaysaa ma aha maanta siyaasiyiinta ma aha cid kale waa innaga dhalinyarada oo ku dhaawacantay oo ku dhibaatooday mudaharaad hore dhacay ayaa jira dawladuna wax ma qaban shacabkuna wax ma qaban cirana wax ma qaban waxaan leeyahay dhalinyarada kuwiinii hore ee dhaawacnay wax ku qaata haddaad maanta dhaawacanto cirana wax kuu qaban maayo cid kalena wax kuu qaban maayo anigu waxaan intaa kusii darayaa kale nabadda ha la ilaaliyo nabaddu waa muhiim cidda u baahane ee dalka usoo kacaysa waa dhalinyarada siyaasadda innaga waxaa qulo ee inooga banaanay waxa weeyaan inaynu hal cod siino xisbigaynu doonayno laakiin inooma banaana waddada ah inaynu xisbi walba amba xisbi dhiiggeena u daadino